niman ku dabaalan halkan ama aanan ku soo dalxiis tagin maba dhihi karo waxaan ahay reer Jowhar. haddii dhalinyarada Muqdisho ee jawidoonka ah ay u dalxiis tagaan Lido, Jazeera iyo Beachka, reer Jowharna waxay u jawi doontaan halkan oo ay reer Jowharka ay yiraahdaan Xintada. kuwa waxa ay ku mashquulsan yihiin dabaal, kuwana muuqaalo ayay isaga duubayaan, halka kuwa saddexaadna ay ka kaluumaysanayaan. balse ha inooga waramaan dhalinyarada u yimid dalxiiska halkan. دماشات بدن ayaa soo bileeda asxaabtii macal dhalinyarada macal odayaasha xataa si wariyo ku baashaalkan oo badan yahay marka inaga iska baashaalno ay jawi degan qabsano farxadda aan si badino Soomaalinimadana aan si weyneyno waa muhiimada dhabta aan u joogno nolosheena markaan aan si bilaarna aan farxadna ku sii noolaano waa nolosha sida ee muhiim. maanta waxaa joognaa magaalada Jowhar oo lagu yaqaan Xintooda. maanta saako dhan oo maan ku baashaalona waa farxadeena adduunka waa iska aska baashaalo loo birileewa maanta aan dhalay maanta dheelo iska baashaalo saa maanta iska weyn waa iska baashaalona hay waa ka saswaay. bismillaah maanta meeshaan xeebteena dalxiis ku soo aadnay in aan qoysano meeshaan ku damaashaadno sawiro fiican aan ku galno aan soo aadnay wallaahi laakiin meeshaan meelaha kale inaaga duwan tahay anaga waxaan u tahay xeebteena magaalada Jowhar dhalinyaro badan magac loo yaqaano Xintooda. haddii dad badan reer Jowhar haddii Xintooda looga yaqaanaanbo laakiin anaga meeshaan waxaan u tahay meesha kaliya aan u dalxiisno markii xiliyadan oo kale la gaaro aad iyo aad u mahadsantihiin. bismillaah anta waxaan ku sugannahay galabta halkan Xintooda oo magaalada Jowhar gaar ahaan Hirshabeelle. meeshaan waa meel fiican oo xiliyada Aarsi iyo Abriil ku soo dhawdahay waa xiliyada lagu damaashaado waa kaas xeebteen waaye aan ku raaxaysanahay anaga mar kun jeer iyo hal waxaan leenahay hal soo dhawaad war ma Xintada waa damaashaad farxada u soo baxay maanta Jimcaha waa gaar ahaan Hirshabeelle dowlad goboleed Hirshabeelle Jowhar waa tan Xintooda waa baashaaleyna maanta Jimcaha waa waxna isku umaadaan. Mayome oo hooyadii dhashay ay ku waqlashay Maxamed Cabdulqaadir ayaa ka mid ah dadka ka kaluumaysta Xintada, waxaana uu ka sheekeynayaa in kaluun yari ay jirto. anoo lido Maxamed Cabdulqaadir Umar oo magac dheer Mayome meeshaan ana malay shabaq musiyo oo ku qaraabanahay aakan shabaqa alxamdulillah nolol kan maka wayno musiidayna iskaga noolnaymo wallahi alxamdulillah adiga nolol maalmeed ma lagu waayo alxamdulillah alaab isku hayna Jowhar la joogo waa nolol maalmeedka ilmahay waxay cunaan loo joogayo Xintooda gobolka Shabeellaha dhex magaalada Jowhar marba waxaa laga helaa adlaag waxa u badan waxa laga helo waa musiyo wad u badan oo la helo waa musiyo malaay kale waa la'nay waa lagu eego malaay waa weyn laga heli jir malaay madow wax hayalaas laga heli jir laakiin si orma ah musiidaas isku haay mugal ida waqti malaay madow la heli jir ida waa iska fardhi jir laakiin hadda ida oo bees noqotay tan hadda malaayada yar yar mala xura waa la duway sidiisa laga gadaaw aygo hore waa iska fardhi jir badanaan dadka marab le malaay kale waa weyn ayaa isteen laakiin malaay waa weyn ayaa cariiri kale alxamdulillah ilaahay xaqiisa laga sugaa ilaaha keena. reer Jowhar kaluunka marna waa u cunto marna waa u daawo. Xintadana waxay ugu fadhisaa qiimo gaar ah. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa, Universal TV, magaalada Jowhar.